madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray hanjabaadyo kulul oo ka dhan ah Iran waxaana ka mid ah in tilaabooyin military miiska ay saaran yihiin hadaladan ayaa ku soo aadaya xilli Trump saacado ka hor ku dhawaaqay in Mareykanku uu go'doon buuxa geliyay Mareyka Hormuz laakiin arrintan waxaa si adag uga jawaabay ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran oo sheegaya in markab kasta oo soo gala Mareyka Hormuz ay tilaabo cad ka qaadi doonaan waxay arrimahan ay sidoo kale ku soo aadayaan iyadoo ay burbureen wadaxaajoodidii u dhaxeeyay labada dhinac dhanka Israa'iilna waxaa looga dhawaaqay diyaar garow dagaal cabsi weyn oo dagaal ayaa caawa ka taagan gobolka bariga dhexe madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku yaboohay diyaar inuu yahay in arrintan dhexdhexaadin uu ka galo waxaana wadahadal qadka telefoonka uu kula yeeshay madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian shirkadaha Mareykanka ee waaweyn ee shidaalka ayaa digni ka soo saaray haddii muddo dheeraad ah uu sii xirnaado Mareyka Hormuz sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegaynaa wasiirka mayalka adag ee amniga qaranka Israa'iil iyo kooxo uu wato oo Yuhuudda mayalka adag oo xoog ku galay xayndaabka masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus ee la haysto dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo wixii faahfaahina ama wixii warah ee soo kordhintayna hawada ku jirno iyo falaaqayntii ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa Axmed Maxamed Cabdi wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira Maxamedan ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray bayaano isdaba joog ah oo la xiriira wadanka Iran wuxuuna ku adkeysanayaa dowladda Mareykanku inay mowqif adag ka qaadanayso barnaamijka nukliyeerka ay Iran u hanqaltaagayso iyo howlaha ka socda Mareykanka Hormuz Trump ayaa digniin ku bixiyay in dowladda Mareykanku ay 50% canshuur ah ku soo rogi doonto xukuumadda Shiinaha haddii Shiinuhu ay hub siiso wadanka Iran wuxuuna intaas ku daray inuunan wax dhibaato ah ku qabin in uu ku hanjabo in uu xadaarada Iran burburiyo wuxuu sidoo kale ku adkeysanayaa madaxweynaha Mareykanka Iran in aynan wax saameyn lahayn marka ay timaado wadaxaajoodka wuxuuna ku kalsoon yahay in Iran ugu dambeyntii ay miiska wada hadallada ku soo noqon doonto ogolaan doontana dalabaadka wadanka Mareykanka isaga oo ka hadlayay amniga badda ayaa Trump waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada badda ee wadanka Mareykanka ay bilaabi doonaan in ay go'doomiyaan dhammaan maraakiibta isku dayaya inay galaan ama ka baxaan Mareykanka Hormuz wuxuuna ku eedeeyay Iran in ay ka baxday ballanqaadyadii ay sameysay oo ah in ay furi doonto biya Mareykanka Hormuz wuxuuna ku tilmaamay tilaabooyinkeeda inay tahay in kumaal ay caalamka oo dhan ka dhana in kumaal caalamka oo dhan ka dhana Trump ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay dabagal ku sameyn doonaan kana daba tegi doonaan markab kasta oo biyaha caalamiga maraya oo lacag canshuura siiyo dowladda Iran waxaanan ka shaqeynaynaa buu yiri in aan Mareykanka Hormuz miinooyinka la sheegay ee lagu talaalay in aan ka gurno Trump ayaa sidoo kale dabool ka qaaday in uu warbixino ka dhageystay madaxweyne ku-xigeenka JD Vance iyo ergeyga gaarka ee wadanka Mareykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner marka ay timaado wada hadaladii Islamabad ka dhacay caasimadda wadanka Pakistan wuxuuna hoosta ka xariiqay halka dhowr arrimood la isku afgartay in galka nukliyeerka uu yahay mid aan wali xal loo helin ciidamada ilaalada kacaanka garabka ciidamada badda ninka taliyaha ah ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa maraakiibta maraya Mareykanka Hormuz ay gacan buuxda ku hayso Iran iyo ciidamadeeda qalabka sida waxaana loo sheegay wakaaladda wararka ee wadanka Iran ee Faris la yiraahdo wuxuuna intaas ku daray taliyahaasi talaabo kasto khaldan uu cadawga Mareykanka u qaado ee la xiriirta Mareykanka Hormuz waxay horseedi doontaa in uu galo khatar dhimashadeedu ay aad u weyn tahay wargeyska la yiraahdo Wall Street Journal oo soo xiganaya saraakiil ayaa sheegay in Iran ay 5 toddobaad oo duqeyn adag ah oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku wadeen ay ka badbaaday walina ay awood iyo qalab u haysato ay nuclear ku samaysan karto warbaahinta Mareykanka ayaa ku waramaysa madaxda saddexda shirkadood ee ugu waaweyn shirkadaha
shidaalka ka shaqaysta ayaa digniin ku bixinaya in xaaladda qalalaasaha xagga shidaalka uu sii socon doono haddii marinka Hormuuz uu sii xirnaado. madaxda shirkadahaasi ayaa ku nuuxnuuxsaday haddii carqaladaynta biyo-mareenkan muhiimka ah oo sii socdo in ay saameyn weyn ku yeelan doonto shidaalka caalamka iyo xasiloonidiisa. isla warbixinta uu wargeyska qoray ayaa soo xiganaysa afhayeen u hadlay aqalka cad ee Mareykanka oo sheegaysa in maamulka Trump uu ka shaqeynayo sidii uu shirkadaha gaarka loo leeyahay ay u yareyn lahaayeen waxyeelada ka dhalan karta dagaalka bariga dhexe ee saameyn ku yeelan kara saliidda. haweeneyda afhayeenka ayaa tilmaantay in uu xiriir wada shaqeyn la leeyahay shirkadaha waaweyn ee shidaalka ka shaqaysta, isla markaana wax laga qaban doono caqabadaha ka imaan kara ama dhibaatooyin ka imaan kara suuqa shidaalka. madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dadaal dhexdhexaadina sameeyo oo looga gol leeyahay in lagu gaaro nabad waarta in lagu soo dabaalo gobolka bariga dhexe, sida laga soo xiganayo bayaan laga soo saaray aqalka looga taliyo waddanka Ruushka ee Kremlinka. bayaankan ayaa waxa uu daba socdaa wada hadal dhex maray madaxweynaha waddanka Ruushka Putin iyo dhigiisa waddanka Iran Mas'ud Pezeshkian. wada hadalka intii ay wada hadlayeen ayaa madaxweynaha Ruushka waxa uu ku nuuxnuuxsaday in dowladda Ruushku ay diyaar u tahay in ay taageerto hindisiyaal diblomaasiyadeed oo colaadda gobolka bariga dhexe lagu yareynayo. Kremlinka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Putin uu xaqiijiyay dhigiisa waddanka Iran in dowladda Ruushka ay ka go'an tahay inay gacan ka geysato sidii xal siyaasadeed looga heli lahaa colaadda Iran iyo Mareykanka ka dhaxaysa. isagoo ku nuuxnuuxsanaya muhiimadda wada hadal uu leeyahay madaxweynaha waddanka Ruushka iyo in wada xaajood nabadeed la galo inay tahay midda ugu muhiimsan ee wax looga qaban karo qalalaasaha laguna xaqiiqsan karo xasilooni in lagu soo dabaalo gobolka bariga dhexe. dhexdhexaadintan uu soo jeediyey Ruushku ayaa waxa ay muujinaysaa in Ruushku uu weli wado in gobolka bariga dhexe arrimihiisa uu rabo in uu ku taageero sidii xal diblomaasiyad loo heli lahaa oo colaadda lagu xalin lahaa. dowladda Ruushka ayaa mar kale ku celisay in nabad waarta sida keliya lagu gaari karaa ay tahay xal siyaasadeed oo lagu wada xisaabtamayo danaha dhinacyada colaadda ay ka dhaxayso. wasiirka amniga qaranka ee xagjirka Israa'iil Ben-Gvir ayaa booqday masaajidka Al-Aqsa xindaabkiisa ee ku yaala magaalada Qudus oo ah mid ka mid ah meelaha ugu xasaasisan ee gobolka bariga dhexe. waxa uu sheegay maanta waxaan dareensanahay buu yiri in anagu meeshaan leenahay. Ben-Gvir ayaa film laga duubay waxa uu ku sheegay in xafiiskiisa uu qaybiyay filmkaas asagoo sheegaya in aan wax walba sameynayno karankeena oo aan meeqaamkeena ku xoojinayno, waa inaan riixnaa buu yiri ku riixnaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu wax badan ka qabto sidii aan ula wareegi lahayn masaajidka Al-Aqsa. waxaa waajib uu yiri in awoodeena ay sii korodho marka dambeysa. bayaankan oo bayaan uu soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Urdun ayaa lagu sheegay inay u tixgelinayso booqashada Ben-Gvir uu ku tegay masaajidka inay tahay xadgudub ka dhana xeerarkii caalamiga ahaa ee lagu maareynayay masaajidka Al-Aqsa, isla markaasna in ay tahay xadgudub lagu sameeyey xurmadii masaajidkaasi. waxayna tahay arrintaasi iyo tallaabada uu qaaday wasiirkaasi in la cambaareeyo, dhaqankiisana uu yahay mid aan la aqbali karin oo gardarro ah. marka la fiiriyo xaaladda xasaasiga ah ee sanado badan ka jirtay masaajidka Al-Aqsa ayaa maamulka muslimka xayndaabkaasi masaajidka uu ku yaalo waxaa maamusha hay-adda awqaafta ee waddanka Jordan ama Urdun. yahuuddana waxaa loo ogol yahay inay booqdaan laakiin looma ogola in ay ku cibaadaystaan. tahay maxamed waa mahadsan tahay, daawadayaashuna way mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa daawadayaal. waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah degdeg ah ee soo kordha, ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina.
وتهي صدق وهذا دعوة ضيال مركله ولي واحد لصعتان برنامج كي wararka caawa maxamed aan ku bilowno dhanka qaanuunka waxa laga yiri qobarada waxay ka tiri hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee la xiriira waxaan la wareegayaa marinka Hormuz iyo go'doon baan gelinayaa iyo waliba maraakiibta maraysa biyaha caalamiga ee Iiraaniyiinta khidmadda siiyay tilabaan ka qaadaya ama waa la wareegayaa arrintaas maxaa laga yiri in professora oo jaamacad ka dhiga aqoonta daraasaadka cilmiga badda oo la yiraahdo Rockford Wells ayaa waxa uu sheegayaa ballanqaadkan Trump uu rabo inuu ku go'doomiyo marinka Hormuz waxa ay taabanaysaa qaybo lagu sheego in ay yihiin naadir ee qaanuunka caalamiga Trump hadalkan uu ku sheegay in uu go'doominayo marinka Hormuz ayaa waxay u dhigantaa tallaabada ay Iiraan qaadayso oo u ogolaanaysa maraakiibta qaar in ay maraan marinka Hormuz hase ahaatee ay u furan yihiin maraakiibta caalamiga inay baddaasi maraan sida ku xusan qawaaniin kala duwan oo qaramada midoobay ay soo saartay waxa uu intaas ku daray Iiraan ayaa waxa ay leedahay iyadu badda ma xireyso waxay ogolaanaysaa oo kaliya maraakiibta qaar maraakiibta ay sii deynaysana waxa weeye maraakiib dadkan cadow ku ahayn laakiin waxay u muuqataa Trump in uu ku dayanayo Iiraan oo uu leeyahay sidoo kale ayaan yeelayaa laakiin laba khalad ma noqonayaan kuwa sax noqda sidaas si la mid ah go'doominta oo ku dhawaaqay waxa ay tahay buu leeyahay ku dhawaaqid dagaal sida professorku hadalku dhigayo si kasta ay tahay qawaaniinta caalamiga ah ayaa arrintan ay ku tahay dhif iyo naadir labada dalba waxay ku andacoonayaan tilaabooyinkooda inuunan xadgudub ku ahayn xeerarka iyo qawaaniinta hadda jira ee badda lagu maro waa gartay waaya haddaynu dhinaca kale ka eegno maxamed marka madaxweynaha Mareykanka waxaynu aragnaa hadallada ku hadlayo in mas'uuliyiin xitaa Mareykanka qaarkood ay ku tilmaamayaan dambi dagaal inuu yiraahdo Iiraan hal maalin baan sidoo kale ku qabsanaya soo ma noqonayso ninku faan weyna ama timirtii hore oo dab loowa 40 maalmood baa Iiraan dagaal lagula jiray sida muuqatana laguma guuleysan marka maxaa loo fasirin karaa hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka oo fariimahan isku xiga ee Twitterka ku soo qorqorayo Professor Meshamer ayaa sida uu hadalku u dhigayo ku sheegay madaxweynaha Mareykanka in uu yahay nin xagga garaadka aad uga hooseeya dagaal caalamiina laga yaabo inuu horseedo marka uu leeyahay xadaarada Iiraan ayaan tirtirayaa waxa uu si dadban ugu hanjabayaa nuclear Iiraan uma muuqato inay u talaazulayso madaxweynaha Mareykanka hadda ka hor ayuu yiri magaalada Tehran waa in laga guuraa hadda ka hor waa ninkii yiri Falastiiniyiinta marinka Gaza waa inay ka guuraan khabiirada Mareykanka ee la socda arrimaha Mareykanka waxay leeyihiin madaxweynaha Mareykanka waxyaabaha uu sameeyay dhaqankiisa ma aha nin siyaasi wax lagu yaqaano hawshan uu galay iyo dagaalkan uu galay wargeysyada iyo warbaahinta Mareykanka sida ay qorayso waxa weeye wadanka Mareykanka meeqaamkii adduunka lahaa iyo sharaftii ayuu khalkhal geliyay dhaqaalihii adduunka ayaa khatar ku jira suuqa markuu furmo maalinta Isniinta waxa laga baqayaa in ay afka goosato saamiyada saliidda inay afka goostaan oo ay noqdaan sicirka inuu aad iyo aad u kaco waxa ayadana aan meesha ka maqnayn madaxweynaha Mareykanka hanjabaadda uu Iiraan u jeedinayo uma muuqato Iiraan inay wax ku qaadanayso khabiiradii Iiraan yaqaanay iyo nimankii mutakhasisiinta ku ahaa arrimaha militariga iyo arrimaha la xiriira Hormuz iyo taariikhda Iiraan ma rabo inuu wax ka dhageysto iyo ciidamadiisa sirta marka madaxweynaha Mareykanka waxa uu sameynayo iyo badan hadda uu leeyahay waa go'doominaya iyo maraakiibta caalamiga ah meesha maraysa cidii lacag bixisa ayaan beegsanaya dagaalka ayuu balaarinaya dad kale soo gelinaya uma muuqato ninkan madaxweynaha Mareykanka dhaqanka uu ku dhaqmayo in uu wax xiirinayo laakiin waqtigan u deynayna wuxuu sameeyay arkayna laakiin Iiraan dhankeeda sida uu sheegayo ninka madaxda ka ciidamada badda ciidamada ilaalada kacaanka uu leeyahay aad ayaan ula socnaa dhaqdhaqaaqa cidii isku dayda iyo markabkii isku daya tallaabo ayaan ka qaadaynaa waxaad moodaa dagaalkii inuu meeshiisa ku noqonayo madaxweynaha Mareykankana
qaabka u dhaqmayo iyo sida u hadlayo uma muuqato in Iran guusha ay la hooyanayso inuu wax ka soo ceshan karo. waa gartay way haddii aynu dul istaagno arrinkaasi maraykanku awood kastoo isticmaalay maraakiibta gantaaladu ay ku rikaban yihiin diyaaradaha B2 B52 diyaarad kastoo isticmaalay iyo gantaalo kala duwan marka waxa u haray isticmaali karaa waa nuclear uu ku doodaya Trump saabaynta arrintaas ma arrin Iran ku kooban bay noqonaysaa haddii nuclear la isticmaalo maxay arrintaasi khibrado ka leedahay arrimaha nuclearka ku takhasusay Douglas McGregor oo arrimahan ka la fagurayay ayaa waxa uu yiri Maraykanku wuxuu dhaqan ka dhigtay dagaaladii uu la galay Afghanistan, Iraq, Libya in wadamada markuu uu duqeeyo ay xukuumadda dhexe burburto madaxdana uu dilo in wadanku isku dhex yaaco. Iran 48 saacadood ugu horeeyay dagaalku uu ku sameeyay iyo wixii ay saadalanayaan Israa'iil iyo Maraykanku waa shaqeyn waayeen. weliba waxay ku sii indha adeegayaan inay sii wadaan hawsha 40 maalmood kadib Iran waxaad moodaa weli inay taagan tahay Maraykankan inuu leeqanayo sidoo hadalku u dhigay McGregor. Maraykanku wax kasta uu sameeyo Iran kagama adkaan karo dagaal hub caadi la soo kaashanayo. Hadda madaxweynaha Maraykanku waxa uu sarbaabaya oo ka baqaya inuu afka ku balaariyo nuclear ayaan ku baqsanaya laakiin Iran ma aha mid baqaysa. nin kale oo khabiir ah oo Shiinaysa oo Professor Chang la yiraahdo horena u saadaaliyay Trump inuu madaxweyne noqon doono inuu Iran dagaal ku qaadi doono in dagaalku uu ku jabi doono ayaa hadda waxa uu leeyahay madaxweynaha Maraykanka waxaa ka hoos baxsan in hanjabaad uu jeedinayo inaan Iran waxba ku qaadanaynin wax kasta uu sheego waxaana muuqata buu leeyahay nuclearka uu sida dadban ugu hanjabayo in Iran aynan ka baqaynin hadday taasi dhacdana Maraykanka dagaalkan 40 maalmood socday wax allaali wixii karaankiisa uu sameyn kara ayuu sameeyay waxaana lagu qiyaasay dagaalka uu Maraykanka dagaalamayo iyo agabka uu ku dagaalamayo inay yihiin aad kuwa qaali u ah qaabka uu dagaalamayo yahay qarnigii la soo dhaafay dagaalkan casriga ah Maraykanka awoodiisa ayaa u been sheegtay oo ah waxa uu islaha xog ayaad ku muqoonaysaa Iran laakiin xaqiiqada meeshii jirta ayaa waxay tahay sida warbaahinta Maraykanka qaar ay wareysteen oo magaciisa iyo codkiisa ay qariyeen nin askari ah oo ka samato baxay duqeynta Kuwait askari Maraykan ayaa waxa uu leeyahay meelaha la geeyo waa ku dayacanahay mana isdifaaci karno. waa gartay waa yahay gabagabadii baan ku dhownahay haddaynu eegno wararka ugu dambeeya ee soo dhacaya waxaa ka mid ah dhanka Israa'iil waxaa la sheegayaa waqooyiga Israa'iil gaar ahaan magaalada Nahariya ku taal gobolka Jiliid dhankiisa galbeed in laga maqlayo seeriga gantaalada ka diga waxaana lagu soo waramayaa in ugu yaraan 10 gantaal Xisbullah ay soo riday goor dhaweeto sida uu tabinaya telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay waa hagaag docda kale aynu eegna Maxamed Iran markaas digniintan Maraykanku leeyahay Shiinaha uga digayna inuu hub siiyo macluumaad sirdoon way soo bixin shalay oo wararkayga ku sheegnay Shiinaha muu bereeri kara arrinkaasi mise digniintan waxa laga yaabaa inuu u tanaasulo ama uu kaga gaabsado arrintaasi taageerada uu siin lahaa Iran. Maraykanka dagaalka Iran intuu gelin ka hor wax laali wuxuu sheego waxa laga yaabi lahaa Ruushka iyo Shiinaha inay u qaataan laakiin hadda Maraykanka wuu ka shifmay awoodaha uu sheeganayo waxa uu sheeganayo inay xad leeyihiin ayaa Iran tustay Shiinaha in ay hub siinayso Iran wax cadeyn looma hayo haddii xataa ay siinayso waa dawlad weyn wax ku jaban lama arko Maraykanku wuxuu hub siinayay Ukraine midda kale hanjabaad uu Maraykanku u jeedinayo Shiinaha ma aha wadan sahlan ma aha waxa weeye wadanka hadda adduunka ugu awood weyn weeye Maraykankana sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan meeqaamkii oo caalamku laha hoos ayuu soo degay hadda waxa laga hormarinayaa maadaama uu maquunin waayey awoodii Maraykanka inay fashilisay dagaalkan casriga ah ee hadda teknolojiyada casriga ah gantaalada guuxooda ka dheereeyay diyaaradaha dronska la soo isticmaalayo Maraykanka hadda waxaa qoorta ugu jirta Iran oo martabada saddexaad ku haysata
shiinaha iyo ruushka labada waa laga hormariyey maraykanka marka saaxiibana ma haysta iyo xulufo madaxweynahana hadallada uu sheegayo kama fiirsanayo haddii shiinaha uu hanjabaadaas u jeediyo waxaa laga rabaa meelmarinteeda shiinaha cunaqabateyn kastoo lagu soo rogo waxba kama goynayso laakiin siyaasadda uu damacsan yahay ayaa waxay tahay in uu xagga shidaalka gobolka bariga dhexe uu ka carqaladeeyo sida professor shiinaha uu hadalka u dhigayo waxa uu leeyahay madaxweynaha maraykanka dad badan ayaa doqon u mooda laakiin taariikhda maraykanku wuxuu geli doonaa inuu yahay midkii suuqyadii caalamiga ahaa ee shidaalka afka u gooyey shidaalka waxa uu noqonayaa midka wadanka maraykanku soo saaray iyo midka uu ka qabsaday marinka hormuus qolyaha kalena dagaal ayuu ku salidayaa iyo inay xirmaan marinadan caalamiga ah ayuu khabiirkaasi doodihiisa ku daray waxay tahaba madaxweynaha maraykanka hawshan u wado khabiiro badan ayaa waxay leeyihiin waa la rugmanaysaa dagaalka hadda waxay joogtaa oo kaliya shiinaha haddii wadamo kale uu maraakiibtooda la wareego ama uu ku soo rogo tallaabooyin gaar ahaan kuwa lacagta bixiya waxaa halkaasi ka imaanaysaa in dagaalka uu ballaaran doono waa tahay wixii soo kordha waynu arki doonaa maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna way mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijka wararka caawa si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda kusoo biir aynoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgelyo